faraxsanahay inaan qofkii ugu horreeyay halka ka soo baaskareeyo noqdo aniga oo maanta ka gudaha ku jiray oo councilorkii Tower Hamlet oo ku shiray maanta meesha la yiraahdo Tower Hamlet marka halka waxa ka dhashay ictiraafkii Somaliland oo si sharaf leh loo baaskareeyay iyagoo halka ka jeediyay hadallo ay dhiigu iyo xaadu idin kici doonto marka dib u dhageystaan Somalilandersku maanta waa maalin weyn waa maalin sharaf leh waxaan u mahadnaqaynaa oo si weyn ugu mahadnaqaynaa Amina Ali oo waxa ahayd inanta arintan soo abaabushay say u dhan tahay oo maanta si weyn looga amaaray councilka haday tahay gudaheeda iyo wasiiradii iyo councilkii kale ee yimi ama ha noqoto Somaliland ha ka socdo ama meel kale ha ka socdo halka waxa ka dhashay ictiraafka Somaliland oo si rasmi ah loogu dhawaaqay si majority-na loogu fooday waa mahadsantiin waxa ku jiray dad badan oo Somaliland oo marka ay Somaliland laga sheegaba halka shacabka tumayay waxa kale joogay wasiiro ka socda wadanka Somaliland iyo mas'uuliin kale oo baarlamaanka iyo xisbiyada kale ah waa Maxamuud Bare Maxamuud oo isaguna ku jiray halkan town hallka Tower Hamlet maanta shucuurteedu aad bay ku caasantahay waxaan u mahadnaqaynaa Amina Ali waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka macdanta waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Kayse waxaan leenahay dhammaanba Somaliland guuleysta maanta waxa ku dhawaaqay 55 xildhibaan oo ah degmada Tower Hamlet waad mahadsantihiin waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland waa maalin farxad leh waxaan halkan ka hambaleynayaa inanta Amina iyo dhammaan intii ka soo shaqeysay iyo intaydan caawa xafladda joogtayba hambalyan leenahay oo iska midhmidheysanaynaa kolba xaafad aakhirka waxa iman doona in London oo dhan ay ictiraafto taa wax ka weyn ma jirto marka hambalyan leeyahay dadweynaha Somaliland meel kasta joogtaan assalaamu calaykum wallahi maanta waxa weeye waa maalin taariikhi ah waxa weeye waa maalin aad iyo aad u weyn waxa muxuu ahaa raggii meesha councilorska ahaa dhammaantood raggii meesha soo fadhiistay Somaliland in muxuu ahaa la siiyo independence-kayga la siiyo bay isku wada raaceen waana arrin aad iyo aad lagu farxo waxaan wadaynaa taa maanta xagaa ka socota oo markii saddexaad ah saasumaan daba galaynaa saasana Somaliland insha Allah lagu ictiraafi doona dhawaan in aan halkan isa soo taago oo idin sheego idinka oo unfortunately ama nasiib daro ay sharciga councilka tahay inaan saxaafadda gudaha hore loo ogoleyn halka hawsha ka socoto haddana waxa aan halkan ka sheegayaa in aqoonsigii Somaliland ee Tower Hamlet isku aqoonsatay qarankeena Somaliland jamhuuriyadda Somaliland oo si aad iyo aad u fiican oo habsamiya oo qurux badan u dhacay in la isku waafaqay dhammaantood inay taageeraan gooniisu taaga iyo gobonimada Somaliland ururka ururada kala duwan ee councilka ka kooban ee ka socda xisbiyada dalkan ee kala duwan 5 xubnood oo ka aamusay mooyaane intii kale oo dhan way u taagtay gacanta waana in aqoonsadeen motionkaasina saas ku socday dadka reer Soomaaliya waxaan ugu bishaareynaa inaanu kala ahayn kii u dambeeyay ee uu noqon doono insha Allah ama councilada kalena ay hawsha gali doonaan waxaanu ku dhiirigelinaynaa jaaliyadda reer Somaliland ee UK degan magaalo walba inay ka hawlgalaan iyaguna sidii ay halka ay degan yihiin uga soo dhawaaqay lahaayeen hawshu maanta waxay maraysaa barbarkay ka baxdaa oo kala qaleen magaalooyinka kale Birmingham Bristol magaalooyinka kale you name it Liverpool Cardiff wayna aqoonsatay waxaan marka leeyahay walaalayaal caawa guul baa halkan taala Tower Hamlet Council aad iyo aad baan iyaga ugu mahadnaqayaa waxa kale oo mahadnaqayaa mahad qaaliya walaasheen Amina Ali oo ah councilorka reer Somaliland ee hawshan sida baaxadda leh uga qayb qaadatay ee soo qaban qaabisay iyo tiimkii la shaqeeyay dhammaantood aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan ku soo farxadeed weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan marxaati ka ahaado waxaan Tower Hamlet ka dhacay town hallkeeda habeen farxadeed weeyaan waxaan jecelahay halkan inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo xildhibaanada Amina Ali oo ka soo shaqeysay iyo tiimkii la shaqeynayay dhammaantood ay ugu horeeyaan Cabdirashiid iyo dhammaantii asxaabtii kale la soo shaqeysay waxaan leeyahay hawl wanaagsan baad qabateen qarankan iyo ummadda Somaliland way idin ogtahay waxaan leeyahay dhammaan reer Somaliland meel kasta ay joogaan iyo xaafad kasta ay ku nool yihiin in sidan oo kale looga qayb qaato oo councilada kale hadhayna ay sidaas kale uga qaataan Somaliland guul ayaan leeyahay waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo aad iyo aad waxaan ugu bishaareynaa ugu hambalyeynaya jaaliyadda Somaliland mar labaad waxaan ugu hambalyeynaa councilkayga Tower Hamlet gaar ahaan
xildhibaanadii sida wanaagsan noogu fooday dhammaantood aad waxaan u sii hambalyeynaya jaaliyadda Bangladesh community-ga oo runtii u xildhibaanada meesha ka fooday ay u badnaayeen oo runtii hal dabala noogu fooday 4 xildhibaan oo conservative-ga oo naga aamusay waxaan dadweynaha reer Somaliland iyo ummadda reer Somaliland meel ay joogto aan u sheegayaa dacaawo inay guuli u soo hoyatay Tower Hamlet ma aha meel maanta taariikhdeedu bilaamayso waa meel almost 200 years history back to Somaliland leh ilaahay waxaanu rajaynaynaa in meelaha inoo harsano aynu gaarsiino guusha aynu doonayna hadii ilaahay ka dhigo billahi tawfiiq sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam runtii maanta farxad weyn bay tahay anigoo ka soo taraafalay Bristol una nimi maanta aqoonsiga Somaliland anagu inaan ka qayb qaadano runtii waa farxad labaad bay tahay inaan marka ka qayb ahayn magaalada Bristol magaalada ugu horeeyay caalamka laga saaray Somaliland haddana waxaan runtii u hambaleynayaa oo aad ugu hambaleynayaa Aamina oo ah runtii geesiyad si fiican uga soo dhaashay hawshaas waxaan ku boorinaynaa konsularada kale ee reer Somaliland inay sidaas oo kale uga hawlgalaan si loo aqoonsan lahaa assalaamu calaykum waa tii saddexaad bay ahayd waxay ahayd baarihii saddexaad ee maxaydaanay aqoonsada Somaliland Tower Hamlet la mid ma kuwa kale Tower Hamlet waxa weeyaan meesha baaraha ugu taajirsan Yurub oo dhan weey boqorada iyo si toos ah hoos timaada Somaliland maanta guul baa u timid ciidan bay u baqayaan iyo meel kale oo aqoonsi ka yaala ma jiro maanta waxa weeyaan waa guul cadaana waxa weeyaan cid kastana way ku dayanaysaa waxa weeyaan kama dambays way Tower Hamlet waxa weeyaan boqorada toos u hoos timaada aqalka weyn ee looga taliyo degmada Tower Hamlet ee ku taala bariga London halkaas oo deegaanka ama councilka degmadani ay ku aqoonsan Somaliland waxaana suurto galiyay oo soo dhameeyay oo xildhibaanka inanta la yiraahdo Aamina Axmed Nirig oo ay dadaal weyn gashay iyo dadka oo la shaqeeyay wali waxa socda madaxdii Somaliland iyo waliba mucaaradka xisbiyada mucaaradka qaar kood oo iyagu arinta ka hadlay oo meesha ku sugnaa Saciid ayaa nimika ku wareejinay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيق وسعيد عمر سعيد وعيد همبليو بان لا رير Somaliland qolada dhays baraha iyo qolqoljoog iyo qurbajoog ba run ahaantii waa maalin aad u weyn maanta waxa weeye oo Tower Hamlet ay aqoonsatay maxay tahay Somaliland waxaana ugu wacnayd uguba muhiimsanaa waxa weeyaan Tower Hamlet waxa ku nool Bangladesh dadka Bangladeshna sida la og yahay East Pakistan bay ahayn waana ka go'een COVID-19 ba ka go'een iyaga mooshinkeena aad u soo dhaweeyay laakiin waxaan doonayaa inaan ku booriyo dadka reer Somaliland tan oo kaliya looma baahna waxa loo baahan yahay in qof kastaba MB-giisa uu tago ka loo bigaray waxa ka effectsanaan lahayd magaalooyinka ina recognize garaynay ama magaalooyinka inaga ina ictiraafaya waxa ka muhiimsan waxa weeyaan in qof kastaba uu MB-giisa la hadlo oo dabatana mooshin la keeno baarlamaanka taas ayaan rajaynayaa maalmaha kamida in mooshin Somaliland lagu ictiraafayo loo keeno baarlamaanka waana mahadsantahay Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu mahad celinayaa xildhibaanada ka soo baxday xaafadan Aamina Axmed Nirig oo runtii suurto gelisay guusha inta leeg iyadoo ay ka horeeyeen muwaadiniin kale oo reer Somaliland oo reer Sheffield iyo reer Bristol iyo reer Birmingham iyo Cardiff oo runtii iyaguna ku day sidoo kale talaabooyin wax koola haro qaaday sharaf bay noo tahay waxaan ku dhiirinaynaa dhammaan bulshada reer Somaliland inay tusaale wanaagsan ay u noqoto inantaasi iyo mudanayaashii iyo marwooyinkii ka sii horeeyay hibaaq jaamac oo Bristol ahayd maxamed cabdilaahi ciise shafiilaha jaaliyada reer Cardiff Birmingham cabdisaaq meecad runtii dhammaantood way ku wada mahadsan yihiin xildhibaanada iyo muwaadiniinta kale ee dadaalka sameeyay caawa runtii waa habeen farxada waa habeen ay guul u tahay bulshada reer Somaliland waanu mahad celinaynaa waxaanu dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ku dhiirinaynaa inay talaabooyin kuwan ka sii sareeya ay qaado oo ay aqoonsigii iyo mas'uuliyaddii iyo wixii loo ogyimaday inuu soo kale uga shaqeyso oo talaabadan aynu qaadin talaabooyin ka sii horeeya ay qaado ilaa intaanu gaarino himilooyinka ay bulshada reer Somaliland leedahay waan idin mahad celinaa dhammaantiin waad mahadsantihiin ka soo shaqeysay amal arrintaas ay ku suurta gashay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay waa guul Allahu akbar waa guul soo hoyatay Somaliland annaga oo maanta la qaban qaabina Aamina taageerayaasheedina ahayn inanta councilorka ah ee xildhibaanada Aamina Axmed Nirig
maanta guul iyo gobonimo ayay noo soo hoyatay waddanka Soomaaliland waa farxad inantaasi waqti dheer ayay hawsha gashay waana ku guuleysatay councilka Tower Hamlet oo aan maanta calan laga taagnay recognitionkii oo cad nala siiyay oo MPyadii halka fadhiyay mid waliba uu gacanta taagay Soomaalilandna taariikhdeedii ay ka warrameen aad iyo aadna ay noo saboodeen guddigood aad baan maanta ugu faraxsanahay hawshii aanu soo galnay aanu soo qabanay waanu ku guuleysanay waxaanu leeyahay mar labaad inanta Aamina ee hawsha soo gashay Aamina Axmed Nirig waxaan leeyahay hambalyo dhammaan reer Soomaaliland meel wala ay joogaan waxaan leeyahay guul wanaagsan bay noo soo hoyatay guul qaali ah calanka Soomaaliland soo hoyatay waxaan jecelahay qof wal oo ka mid ah reer Soomaaliland inuu dhinaciisa xilka iska saaro xaafad walbana MPga loo tago oo sida maanta Aamina ay hawsha u gashay qof walibana uu galo maanta waxaan leeyahay dhammaan ragii u soo halgamay calankan ee dhigooda ku daatay intii dhimatay waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto inta nool waxaan leeyahay hambalyo calanka reer Soomaaliland waxaan leeyahay guul insha Allah Ilaahay waxaan ka bariyo ictiraafkiina inuu inoogu xigo Soomaaliland maanta waa la ictiraafay insha Allah guul iyo gobonimo wassalaamu calaykum waa habeen farxad leh waa habeen guul ballaaran oo la taaban karo ay u soo hoyatay ummadda Soomaaliland waxa weeye councilorada ama xildhibaanada golaha deegaanka degmada ama baaroga Tower Hamlets ayaa inta la yiraahdo Aamina Axmed ayaa waxay keentay mooshin inta oo ka soo jeeda ama waalidiintoodu ka soo jeedaan Soomaaliland ayaa keentay mooshinka kadibna dhammaan xildhibaanadii deegaanku way codeeyeen waliba khudbado qiiro leh oo la taaban karo ayay ka sheegeen meesha waxay u badnaayeen dad ka soo jeeda xildhibaanadu dadkan Ingiriiska ee cadaanka iyo waddanka Bangladesh waxay noo faa'iideeyeen oo yiraahdeen isku taariikh baynu nahay Bangladesh iyo Soomaaliland waa isku taariikh sida ugu soo halganteen xorriyadiina ayaan ugu soo halganay waan taageerina waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay warqado u qorayaan oo gaarsiinayaan oo meesha ay ka sheegeen ra'iisul wasaaraha waddankan inay u dirayaan Cameroon ay oranayaan war waa in la ictiraafaa Soomaaliland way mutaysatay 25 sanadood bay soo halgamaysay baarlamaan bay leedahay intaasoo shan doorasho ka dhacay waxay leedahay ciidan military mid police waxay leedahay lacagteeda u gaarka ahayd hal aqoonso Soomaaliland way istaashaa nimanka caawa meesha farxad aan la soo koobi karin baa ka dhaxday farxad ballaaran baa ka dhaxday waxaan leeyahay Soomaaliland guul iyo gobonimo anigu inkastoo caawa Soomaaliland aynu halka ugu dabaaldegayno haddana anigu waxaan ku hadlayaa afka xisbiga wadani oo aan uga soo qayb galay dabaaldegan waxa weeye anaga halka waxa jooga TV-ga qaranka halkaasaan taagnaa iimo iman waxaan leeyahay farxad leh inan councilorada oo la yiraahdo Aamina Axmed Cali inay arrinkaas soo qaban qaabisay oo ay ku dhiiratay ayaan leenahay inantaasna waxay ka soo jeedaa Soomaaliland gobolka Togdheer marka waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan Aamina caawa arrinka ay waday ee halkan keentay aan kala soo qayb galo counciloradina wayna taageereen waxaana yiraahdeen waxaan u gudbinaynaa prime ministerka waddankan waxaan bari halkan uga dirayaa Kalsan TV iyo Salaan Media oo arrinkan iga duubay oo TV-ga qaranku anigoo xildhibaan qarana hadda eeg waa TV-ga qaranka xildhibaan qaran baan ahay oo aad loo yaqaano inaana iima markaa halkaa taagnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi habeenka caawa ah anigoo ku hadlaya magaca afka xisbiga wadani xafladana ugaga soo qayb galay magaca xisbiga wadani waxaanu aad iyo aad horta ilaahay ugu mahadnaqaynaa in habeenka caawa ah guusha reer Soomaaliland ay gaadheen in ilaahay hore noogu sii wado si gobollada kale iyo degmooyinka kalena ay ugu daydaan marka koobaad waxaan dib idin xusuusinayaa in degmada Sheffield ay hore sidan oo kale u samaysay degmada muxuu ahaa la yiraahdo Bristol
ay sidaasoo kala samaysay Birmingham imikana ay Cardiff imikana ay tahay ay marayso Tower Hamlets markaa way iska soo daba dhici doonaan insha Allah community ahaana waanu dadaali doonaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa inantaa walaasheena Aamina ee sida wanaagsan Aamina Axmed ee sida wanaagsan sharafta leh ee dadaalka leh iyadu kaligeed u abaabushay doorashadii la doortayna runtii sidii ugu qiimaha badnayd uga faa'iideysay inantaana aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka reer Tower Hamlets community-ga degan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan iyo wax allaala wixii reer Somaliland ee la shaqeeyay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kaloon dibidin u jecelahay inaan maaragtay ummadda Somaliland u sheego i'tiraafku waa mas'uuliyadda dawladda Somaliland inay iyadu i'tiraaf ki raadiso asbaabtii lagu raadin lahaana raadiso waxaan aad iyo aad uga xumahay in dawladda Somaliland ay aad iyo aad khaasatan dawladdan kulmiye inay aad uga gaabisay inay i'tiraafkii doonto imika community-ka Somaliland ayaa ka shaqeeyay waxaanu aad iyo aad maaragtay markaa aan ummadda Somaliland meel kastay joogaan iyo waddan kastay joogaanba aanu ku gubaabinaynaa inay iyaguna dadaalka wadamada ay joogaan ay ka sameeyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa bulshada reer Somaliland ee dibadda iyo gudahaba ku nool waxaan leeyahay tallaabooyinkii i'tiraafka jamhuuriyadda Somaliland oo ku sii xoogeysanaya bulshada dhexdeeda halka ay dawladdii loo igmaday ay ka seexatay oo marka casuumadaha hudheelada Hargeysa lagu qabanayo adduun badan iyo xoog badan iyo maamul badan ku bixisa laakiin aqoonsigii Somaliland ay ka gaabisay maanta halkan waxa yimi wafti ka kooban laba xafiisada hudheelada Hargeysa iyo Yurub iyo Mareykan marka la tagayana ee arrimaha gaarka ah loo socdana 30 iyo 20 ayay isu daba socdaan hantida qaranka ayaa lagu bixiyaa shaqadii qaranka ayaa lagu lumiyaa time badan oo waqtiga qaranka loo shaqeyn lahaa ayaa lagu lumiyaa socdaalada aan meel laba ku tirsanayn ee jamhuuriyadda Somaliland aan waxba uga qabsoomeynin marka waxaan ku bogaadinayaa bulshada Somaliland halka ay ka wadaan haddii ay dawladdii ka seexatay inay halka ka sii wadaan aqoonsigooda ay raadsadaan xilkii ay dawladdu ka gaabisay inay iyagu kabaha u xiladaan oo surwaalka u gaabsadaan ayaan farayaa dhammaan bulshada Somaliland kan maanta aynu joognana Aamina Axmed Yuusuf waa inan ku dhalatay halkan kana soo jeeda asal ahaan Somaliland kuna ballan qaaday maalintii la doortay inay arrinkan hirgelin doonto waana hirgelisay waxaana leeyahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay halkaasaynu ka sii wadaynaa salaamu calaa rasuulillah waa maxamed cabdilaahi shafiil baan ka nimi waxaan ka mid ahaa dadkii aqoonsigii kan oo kale ahaa ee shafiil aadka uga shaqeeyey caawa farxad weyn ayaa community-gu dhammaanba dareemaya reer Somaliland gudo iyo dibadba aad baa loo faraxsan yahay aqoonsi baa ka dhacay runtii xildhibaanadii golaha deegaanka ee halkan isugu yimi aad bay u taageereen i'tiraafka Somaliland inanta la yiraahdo Aamina Axmed Nirig arrintan ka soo shaqaysayna runtii way ku mahadsan tahay si qiimo leh uga soo shaqaysay saaxiibadeed oo dhan bay soo diyaarisay aad iyo aad baa loo taageeray waliba waxay codsatay in councilkan Tower Hamlet ee ay ka qayb tahay uu la saaxiibo ama mataana la noqdo councilka Burco oo sababaha oo ah xaafadan dadka degan ama dadkii caawa meesha joogay ay u badnaayeen dad reer Burco ah runtii councilaradii caawa halka ka soo qayb galay si qiimo leh bay u taageereen dadweynuhu ugu faraxsan yahay arrinta ammaanteeda waxa iska leh Aamina Axmed Nirig oo ah councilar xaafadan ka soo baxa ayaa iska leh runtii waxaan jecelahay oo aan ku dhiirigelinayaa councilada kale dadka reer Somaliland degan in ay councilaradooda ka codsadaan tan oo kale aad iyo aad bay u mahadsantiin wassalaamu calaykum wasiirka ku sugan oo wasiirka tamarta iyo macdanta Xuseen Cabdi Ducaale iyo waliba wasiir Axmed Kayse labaduba goobjoog ay waayeen markii Soomaaliland halka lagu aqoonsanayay maanta ee degmada Tower Hamlet hadaloodoodina waxa kamid ah sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa habeen aad u farxad leh oo taariikhi ah
maanta qadiyadda ka dhacday Tower Hamlets magaalada London ku taalla ee taariikhiga ee Tower Hamlets oo taariikh weyn ku leh dadka reer Somaliland oo ay degmoodii ugu horeysay degeen ay ka moogtay yani loo areynay inay degeen 1900kii soo degeen halkan ayaa maanta xusid weyn ayaa maalinkan maanta City Councilka Tower Hamlets xusay qadiyadda Somaliland isagoo tixgelinaya halganka weyn muxuu ahaayay community-ga reer Somaliland u galay qadiyadda Somaliland si ay uga dhaadhiciyaan City Councilka Tower Hamlets oo ay hormood waliba ka ahayd councilorada ama xildhibaanada qaaliga ah ee reer Somaliland u dhalatay xildhibaan Aamina Axmed Cali runtii maanta halkan waxaanu shahuud u ahayn aniga wasiir ku-xigeenka khaarijigu oo aanu ka ahayn wafdigii ka yimi jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo maalinka maanta habeenkan taariikhiga ah u arko oo ugu marxaati ka noqdo muxuu ahaayay waxa halkaan ka aragnay in codkii si aqlabiyada loo ansixiyay oo ay magaaladan Tower Hamlets ee taariikhiga noqotay magaaladii saddexaad ee dalka Ingiriiska ee ictiraafta qadiyadda Soomaaliland iyo go'aan istaageeda runtii waa maalin qaali ah waa maalin taariikhi ah waa maalin aad iyo aad xusnaan u mudan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa magaalooyin badan oo degaan ay ku leeyihiin ummadda reer Somaliland oo dalkan Ingiriiska in iyaguna ay dabagali doonaan ictiraafkan maanta ka dhacay halka caaw ka dhacay oo ay kaga sii horeysay magaalada la yiraahdo Sheffield oo ay kaga sii horeysay magaalada la yiraahdo Cardiff waxaanu filaynaa magaalada Bristol insha Allah taala inay ku xigi doonto oo ay halka ka sii socon doonto oo ay qasab markaa ku noqon doonto dawladda Ingiriiska inay qadiyadda reer Somaliland hoos u eegto oo ay tixgeliso ictiraafka maalinkan maanta ay go'aan istaaga Somaliland aad iyo aad baan u faraxsanahay aniga wasiir ku-xigeenka halkan ka socona jamhuuriyadda Somaliland meel aad iyo aad u fiicana qadiyadda ictiraafka Somaliland waa maray assalaamu calaykum wasiirka dhameeyay Xuseen Cabdi Ducaale wasiirka macdanta iyo tamarta runtii sidaa uu sheegay waxaan la qaybsanay ama la wadaagaaba dareenka farxadeed ee wasiirku iyo ka dhawaajiyay iyo jaaliyadda reer Somaliland ee London degan gaar ahaan Tower Hamlets runtiina sida aanu wasiirku waxaanu ahayn wafdi ka yimi shalayto oo hogaaminayay wasiirka macdanta iyo tamartu oo aanu shalayto nimi si aanu xafladan maanta ugala qayb galno iyo xafladda habeen dambe iyadana lagu dabaaldegayo Somaliland ka dhici doonto kale Badnal Green bariga London ka dhici doonta runtii waxaanu maanta goobjoog u ahayn waa arrin weyn oo taariikhi ah oo cimrigeygu nagu sumay waqtiguna nagu sumay runtiina aanay ahayd in maanta Tower Hamlets golaha deegaanka Tower Hamlets oo cod aqlabiyadu ku ansixiyay in Somaliland aqoonsado runtii sidaa uu sheegay wasiirku waa magaaladii saddexaad ee aqoonsata ee UK ka tirsan laakiin tan waxay kaga dheertahay waa caasimadii baari xaafadda ugu horeeyay caasimadda ugu horeeyay magaalada ugu horeysay Tower Hamlets inay kuwa kale ku dayan doonaan sida ay markaasi mustaqbalkana la gaali doonay ilaa heerka golaha wakiilada ama baarlamaanka Ingiriiska iyo dawladdiisu ay markaasi dib u eegi doonaan siyaasadda ku wajahan Somaliland ee aqoonsi raadiska inay ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa baarayaal kale iyo dawladda Ingiriiska iyo dawlad kaleba inuu tuso xaq ay u leeyihiin Somaliland inay ayahooda ka tashato runtii waa habeen farxadeed mahadnaqa kale waxaan siinayaa jaaliyadii soo qabanqaabisay teamkii ha ugu horeyso councilor Aamina Axmed Cali oo runtii qayb leh wax la ka qaadatay kana soo shaqaysay ilaahayna ha ka abaan mariyo taariikhdana way xusi doontaa kulay waxa ay maanta dalkeedu u sameysay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ومحسنتي وقدي ومحسنتي مانتو والله ما أنا كفر حسنا ما شرتو إن أن كونسل كي تاو حمل مانتا كسو صاري Somaliland recognition والله وان كو فرحسنا إني motion kii markii aan diibay inay xildhibaanadii xusbi kasta ka socda aniga ay support gareynayeen ay mid walba iyaguna si fiican u hadleen oo ay ka hadleen Somaliland say u baahan tahay inay hesho ixtiraaf isaguna imika doonayaan inay insha Allah nasi caawiyaan waxay kale ku dareen anaguna ku raacsanahay inay burco iyo Tower Hamlets isku xidhaan oo marka ay wala shaqeeyaan labadaas baxaafadan Tower Hamlets iyo burco taana waan ku fiicanay because inta badan dadka Somaliland halkan degan waa reer togdeer marka way fiican tahay inay marka saas oo kale loo garto maanta waxaan anigu doonay marka inaan iraado maanta London haddaanu joogno Tower Hamlets baa u horeysay London borough ixtiraaftay Somaliland
waxaan oran doonaa marka insha Allah inaan kuwa kalena ku arkaysano bariyada kale iyagana inay saas sameeyaan aanu marka caasimada gibigeedaba aanu wala qabsano markaan inta dhameynano waxaanu doonaynaa inuu insha Allah dawladaha ku bilowno kan ingiriiska marka hore aanu ku bilowno way nagu adkaan doontaa laakiin walaahi maanta geesinimadeena waanu aragnay reer Soomaaliland aanu nahay Tawa Ahmed ma baqana anagu dadgeesiina baanu nahay meelba waanu jiidnaa marka baarlamaankana waanu jiidi doonaa insha Allah waxaan doonayaa inaanu doono